kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halka naga daawanaysa Mabawlas Media wararkeena maanta aan idinku wahana qodobadiisana waxa kamid ah Mareykanka Uganda ka codsay inay martigeliso 2,000 oo qaxooti Afghanistan ah Somaliland oo maanta xukun dil ah ku riday askarigii dilay Ibrahim Abdishakuur maxaa sababay khilaafka soo kala dhaxgalay guddiga doorashooyinka dalka daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan waddanka Uganda ayaa si ku meel gaar ah ogolaaday inay si ku meel gaar ah u martigeliyaan 2,000 oo qaxooti Afghanistan ah kadib codsi kaga yimid Mareykanka sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Uganda Istarayna kumo ah wasiir dawlaha gargaarka u diyaar garowga musiibooyinka iyo qaxootiga Uganda ayaa sheegay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku amray inay u diyaar garowaan sidii ay u qaabili lahaayeen 2,000 oo qaxooti ah oo kaga imaanaya Afghanistan waxayna xustay in Uganda ay aqbashay codsigii kaga yimid dawladda Mareykanka waxay naga codsan inaan martigelino 2,000 oo qaxooti ah ayay tiri Istarayna wakiilka hay'adda qaxootiga UNHCR ee Uganda Joel Batura ayaa sidoo kale xaqiijiyay go'aanka qaabilaadda qaxootiga Afghanistan kumanaan qof oo reer Afghanistan ah ayaa ka qaxay dalkaasi kadib markii dagaalyahanada Taliban ay xaddii shaaciyeen inay galeen caasimadda dalka ee Kabul ayna la wareegeen xarunta madaxtooyada madaxweynaha Ashraf Ghani ayaa ka tagay Afghanistan isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado dhiig daatay taasi oo muujinaysa in la soo afjaray colaadii 20 sano ay socotay Taliban ayaa dhinaceeda ku dhawaaqday inuu dhamaaday dagaalkii Afghanistan ka socday muddadii 20 sanadood ah waxayna afhayeenkooda Maxamed Naciim uu sheegay inay gaareen guushii ay raadinayeen Somaliland ayaa maanta soo gabagabaysay dacwadda kiiska dilka ee bilowday bishii July ee sanadkan jaamacadda Camuud qaybteeda Boorama oo lagu geystay Allah u naxariistay marxuum Ibrahim Abdishakuur maxkamadda ciidamada ee Somaliland iyadoo oo kiiskani gacanta ku haysay ayaa maanta ku dhawaaqday in xukunka dilka toogashada ah lagu riday Cismaan Diiriye Buraale oo ah askarigii ka dambeeyay dilka marxuumka oo xilligaasi ka mid ah ardayda jaamacadda Camuud sidoo kale askariga geystay falka dilka ah ee la xukumay ayaa ka mid ahaa ciidamada waadiyeynaysa dhismaha jaamacadda sida ay shaacisay maxkamadda oo fadhiyo kala duwan ka yeelatay kiiskan Cismaan Diiriye ayaa lagu helay falka lagu soo eedeeyay kadib marqaatiyo iyo cadeemo lagu helay dilka Ibrahim Abdishakuur oo 22 sano jir ahaa kana soo jeeday Puntland gaar ahaan Boosaaso ayaa dhaliyay caro xoogan maadaama lagu dilay jaamacaddii uu dhiganay Somaliland oo iyaduna deegaanadeedu uu ka dhacay dilka ayaa soo faragelisay arinta waxayna shacabka ugu baaqday inay isdajiyaan iyadoo oo sidaasi lagu xiray askarigii geystay dilka oo ay maanta xukun adag ku riday maxkamadda militariga ee Somaliland xukunkan ayaa waxaa sidoo kale aad u soo dhaweeyay ehlada marxuumka ardayda jaamacadda iyo guud ahaan shacabkii ka carooday dilka wiilkaas dhalinyarada ahaa Allah u naxariisto Ibrahim Abdishakuur ayaa waxa uu dhiganayay sanadkii labaad ee kulliyadda injineerka ee jaamacadda Camuud qaybteeda magaalada Boorame guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa la sheegay inuu soo kala dhaxgalay khilaaf ka dhashay soo saarista braaca doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya ee shalay la shaaciyay kadib qoraal ka soo baxay guddigaasi Siciid Abshir oo kamid ah xubnaha guddiga ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha ay keenay khilaafka iyo waxa ku dhaliyay inuu ka hor yimaado braaca la soo saaray sababta ayuu Siciid ku sheegay in wali la gaarin xilligii lagu talagalay in la shaaciyo braaca maadaama maamulada qaar ay soo dhameystireen doorashada aqalka sare habraaca ma diidani balse waqtiga la shaacin lahaa lama joogo waxa aan nahay guddi madax banaan oo loo xir saaray doorashooyinka dalka waxa aan ku shaqeynayna ma ahan sharci qoran ama xeer doorasho oo la ansixiyay ayuu yiri Mr. Siciid Abshir sidoo kale wuxuu la yaab ku tilmaamay shaacinta habraaca doorashada oo uu sheegay in lagu soo aadiyay xilli xubnaha qaar ee guddiga ku maqan yihiin maamul goboleedyada dalka xubnaha ugu sareysa guddiga FEIT waxa ay dawlad goboleedyada u aadeen la socodka doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga ayaa kala maqan oo la yaabay in arrin masiiri ah la soo saaro ayuu hadalkiisa sii raaciyay Siciid oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dhinaca kale madaxa maaliyadda ee FEIT Mudane Cabdi Xiis ayaa ka soo horjeestay habraaca isagoo oo warqad cabashaha u diray golaha wadatashiga qaranka ee dalka Cabdi Xiis ayaa sidoo kale ka digay dhibaato hor leh oo ka dhalan karta habraaca soo baxaya oo uu shalay shaaciyay guddiga doorashooyinka heer federaal
arrintan ayaa sababi karta inay xumaato wada shaqaynta xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ay sugayso howlo adag oo ku aadan qabashada doorashooyinka 2021. daawadayaal intaas ayaa kusoo afmeeraya war wixii dalkii dibadda aan idinkaga hanay. waxaa idiin akhrinaya oo idiin soo saaray anigoo ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Khair. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.